السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا دمان noogu xiran soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa maalmahan baraha bulshada marka u qabsaday ciyaaryaankii loo yaqaan Roberto Carlos oo marka uu dheeli jiray xulkii Brazil iyo Real Madrid oo marka aad marka ugu dheeli jiray taasi oo marka hadda wararka oo badanna ay sheegayaan inuu muslimay iyo inuusan muslimin oo marka la isku hayso marka laakiin warkaasi maran baa mise waa war been ah oo been abuur ah miya idan taa ayaa marka ka hadlaynaa marka maanta waxaan ku haynaa xaqiiqada oo dhan marka ha ka bixin fiidowga ilaa dhammaadka waayo waxaan rabnaa inaan ku ogeysiino inuu Roberto Carlos islaamay iyo inuusan islaamin inaan marka aan ku caddeeyo ayaan rabaa insha Allah Roberto Carlos horta waa mid ka mid ah daafacyadii bidix ee ugu caansanaa taariikhda kubadda cagta wuxuu caan ku noqday ciyaartii Real Madrid iyo xulka Brazil wuxuuna ka mid ahaa xidigii Brazil ku guuleystay koobkii adduunka 2002 laakiin maalmahan magaca Roberto Carlos wuxuu ku faafay baraha bulshada sabab gebi ahaanba ka duwan kubadda cagta macnaa aslan wax laba ay Soomaan inuu kubadda cagta bis u ka koobnaa laakiin arrinka waa isbedelay marka waxaa la faafiyay warar sheegaya in Roberto Carlos uu islaamay kadib markuu uu guursaday haweeney muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda Morocco taas micnaha dadka shakiga geliyay asiga marka wuxuu guursaday gabar Moroccan ah oo Moroccan ah ayuu marka uu guursaday oo marka ka soo jeeda waxaa sidoo kale la faafiyay sawiro iyo warar ku saabsan xafladii arooska waxaana dad badan u qaatay in arintaasi cadeyn u tahay inuu islaamay cadeyn marka u tahay qaar ka mid ah wararkii la faafiyay waxay xitaa sheegayaan inuu akhriyay shahaadateynka ama ay marka wararka qaar ay sheegayaan laakiin xaqiiqda halkan ka dhigaysa marka oo halkan ayaa xaqiiqdu ka bilaabanaysa marka Roberto Carlos laftiisa ayaa ka hadlay arintan wuxuu si cad u sheegay inuusan islaamin Roberto Carlos asaga ka hadlay arintan inuusan islaamin asaga sheegay waxayna dalad dhow bay ahayd oo marka taariikhda marka ay 20 oo hadda aan ku jirno bishan Agosto 2026 aan dad maksanka aan ku jirno asaga afkiisu ku cadeeyay marka haduu afkiisu ku cadeeyna waxa marka cad inuusan islaamin ayaa marka cad sidaas darteed marka ma hayno xaqiijin uu Roberto Carlos muslim ku noqday waxa aan haynaa waa hadalkiisii oo si toos u ah oo marka si toos u beeninaya oo hadalkiisa ayaa marka beeninaya inuusan islaamin marka sababta ugu weyn oo marka oo Roberto Carlos inuu islaamay inuu islaamin dadka marka jahda ku dhimi wax weeye waa arooska weeye bimacna sababta ugu weyn waxay ahayd in arooska lagu daray dhaqamo kala duwan oo la xiriira labada qoys bimacna qoyska gabadha ka socto waa qoys oo marka Moroccan oo marka islaami marka ah dadkan Roberto Carlos asana dadkiisana asana waa Catholic waa kuwa Christian ku ugu adag oo diinkooda xataa sinam oo diintu ay aaminsan yihiin marnaba dadkaas dheedheel ma ugu bahan illa halkii Allah subhanahu wa ta'ala uu naxariisto leeyahay macnaa oo ugu naxariisto marka sidaas iyo marka sidoo kale sawiro iyo muuqaalo baraha bulshada lagu faafiyay ayaa marka si xoojiyay in dadka marka ay shaki badan ku abuuro ay shakiyaan laakiin sawir qof meel jooga ama xaflad ka qayb galaya kaliya ma cadeynayso inuu qofku diintiisa bedelay tani waa cashar marka muhiim ah oo inaan ogaano marka loo baahan gaaladan waa la og yadeel kuma islaamaan illa ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkiisa hanuuniye maayo waxa xiisa leh ayaa ah in warkan uu si aad ah ugu faafiyay dalal badan oo macna dalal badan buu hadalkan ku faafay oo marka inuu Roberto Carlos islaamay tii horna waxay ahayd Didier Drogba waa ciyaaryahankii oo asagana uu sheegay in marka uusan islaami uu sheegay iyo marka iyo dadka ay si kala duwan ugu falceliyeen marka qaar waxay yiraahdeen Roberto Carlos waa muslim qaar kalena waxay yiraahdeen warkaasi waa been laakiin marka qofka arinta qusayso uu isagu si cad u yiraahdo maanan islaamin waa ina tastaxgelino way macna qofkii oo asaga islaamnimo lagu tuhmay haduu hadlay ani islaam ma noqon haduu yiraahday marka taas arinta kugu filan marka hadii mustaqbalka uu Roberto Carlos si rasmi ah u sheego inuu islaamay markaas waa arin kale laakiin xogta hada la xaqiijiyay taas ma sheegayso in macna Roberto Carlos oo islaamay marka wararkaas marka waxay sheegayaan warar qaar dadka marka wararka qaar ay yiraahdeen waa woo islaamay waa warar marka been abuur ah oo qofka asiga xaqiijiyay marka ma islaamin ninkaasi markii la weydiiyeen wuxuu yiraahday anay maanan islaamin laakiin waxaan ixtiraamayay diinka islaamka ah
iyo wal xataa warar qaar waxay sheegay inuu sheekh macnaha oo u tagay oo aad marka isku yaqaanaan inuu shahaadateynka marka u qabtay oo asagana marka uu ku dhawaaqay asiga intaasoo dhan wuu beeniyey oo taa ma jirto buu yidhaahday يعني wili ma aan islaamin buu yiraahday marka waxaan ku leeyahay fiidiyowga like saar oo too kale sharre sidoo kale waxa aad marka ku sheegaya in aad marka fiidiyowgan wadaagto saaxiibkaaga oo marka asagana ku jahawarsan inuu marka oo Roberto Carlos inuu muslimiin ama inuu islaamin oo ku jahawarsan